dagaal culus ayaa ka qarxay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland iyadoo oo waliba lagu jiro maalmaha xorriyad oo kooda luuli loo dabaaldegay maanta ayaa caawa Garowe waxa ka qarxay dagaal culus wuxuuna u dhaxeeyaa ciidanka jaamacad takar uu hogaamiyo iyo maamulkaas madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaadna ogeeyeen inuu diray hanjabaad aan inaba caadi ahayn Dani wuxuu u hanjabay inaysan ogolaan doonin in Muqdisho laga dumiyo deegaanada Puntland waliba hanjabaadiisaas kadib 24 saac wax ka yar dawladdu dagaal ay ku qaadday baa leeyahay Puntland Garowe xaalad culus ayaa caawa ka taagan waxaan ku hayaa hadalka Dani iyo waxa sababay in xabad ay ka dhacdo gudaha magaalada Garowe oo nabdooneed dhowrkii sano ee ugu dambeeyay sidoo kale warbixinteenan daawadayaal waxaan ku eegaynaa jaamacad takar ciidanka uu hogaaminayo tira ahaan intee bay la egyihiin ma kuwa deegaanada Puntland hajuumaadan ku sii hayn karaa mise waa ciidan laga adkaan karo oo isdhiibaya sidoo kale warbixinteenan waxaan ku soo gudbinaynaa asad diyaano iyo saraakiil kale oo ciidan ayay suuragal tahay in maalmaha soo aadan ay tagaan gobolka bari waxaana halkaas ay ka sii wadi doonaan baa la yiri abaabul ciidan iyo dagaalo ka dhana maamulka Saciid Cabdullaahi Dani waxa muuqanaysa in Dani iyo Puntland la isu baxaystay oo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo raggan kaleba ay markaas doonayaan in awood ciidan ay u adkaadaan Puntland dagaalada suuragalka ah jaamacad takar wali Garowe ku sugan yahay saddex habeen ka hor lagu soo dhaweeyay halkaas dhinaca laas caanood isagoo ka yimid ayuu gudaha magaalada soo galay waxaan kaaga warbixin doonaa halkaas waxa ka soconaya iyo cidda qaadaysa mas'uuliyad ha ilaahay inaad like saarto channelka saaxiibadaan u sii share gareyso waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa ciidankii General Jimcaale jaamacad takar warsame ee dhawaan halkaas gaaray qaybta konti afraadna u badan iyo ciidan kale oo military ah ayaa la soo wariyay in caawa ay dagaal culus ka bilaabeen gudaha magaalada Garowe dagaalka kolkii hore iyaga ma bilaaban baa la yiri oo waxay wadaan abaabul laakiin ciidan ka tirsan kuwa Puntland si gaar ah ciidan ka amar qaata madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa rasaasta ku bilaabay waxayna ciidankaas ka biyo diidanayeen in ciidan uu hogaaminayo jaamacad takar ay gudaha magaalada soo galaan waliba dhinaca waxay ka soo galayeen baa la yiri galbeedka iyo sidoo kale koonfur oo qaybta mudug xigta waxaana la wariyay in laga hortagay oo uu dhacay dagaal culus in door ayaa la maqlayay daryanka hubka culus ee la soo adeegsanaya rasaasta noocyada kala duwan waliba xaafad real estate oo ku qurba joogta ay deegaana oo duleedka magaalada markaas Garowe ku taal ayaa dhankeeda ama aageeda laga maqlay hub culus taas oo dadka ku keentay khalqal amni darro iyo sidoo kale cabsi sida xogtu ay leedahay dawladdu markuu waxay uga gol leedahay baa la yiri in Saciid Dani lagu qabjabiyo isla markaana la tuso in dawladda dhexe ee federaaliga ee Xasan Sheekh waqtigiisa dhamaaday uu hogaaminayo ay ugu yaraan khalqal ku furi karaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumaddiisa oo mandate sharci ah haysta sida muuqanaysa Dani marka waxaan oo dhan isaga ka dambeeya la yiri habeennimadii xalay ahayd ilaa maanta ayuu weerar afka ku hayay ka soo bilow 26 Juun ilaa 1 Luuli حسن شيخ محمود وحان ليه وحي أكو حد جرت واتقانا على عالكاقي وادوبيه على عالكاقي وادوبيه كنت اللواتي دامي اسلام مركانا سوين دولك اولا غلاي taas ayaa soo dadajisay baa la yiri in Puntland la weeraro Saciid Dani ayaana u keenay baa la yiri waxaan oo dhan Dani ayaa si adag u hadlay wuxuuna sheegay in Puntland aysan marnaba tanaasuli doonin waxaana uu intaas ku daray inaysan aqbali doonin in si siyaasadeysan oo ciidan iyo arrimo siyaasadeed ay ku jiraan loo adeegsado maamulkaasna la dumiyo wuxuu ballan qaaday in Puntland ay markaas heegan buuxa uga jirto difaaceeda isagoo tusaale u soo qaatay ciidamada Puntland ee dagaalka kula jiray kooxda Daesh Buuraleyda Calmiskaad wuxuu sheegay in askartii ku soo gurmatay Puntland waa tii ku soo gurmatay marka calaacalaysa waa tii godka ka soo saartay ha ku kadsoomin amniga iyo nidaamka Puntland Xasan Sheekh wuxuu yiri kama yeelayo ciidan igu filan oo argagixisada 10 u dhigana waa haystaa waana iska celinaya ayuu si cad u yiri Dani ayaa sidoo kale ku baaqay in guud ahaan shacabka Puntland ay ku taagnaadaan wadadii ay jeexeen aas-aasayaashii Puntland iyo awoowayaashood sida uu hadalka u dhigay Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya marna ma ogolaan doona in kali talisnimo dambo ay dalka ku soo noqoto dadka reer Muqdisho waxaan u ballan qaadaynaa inaan garab iyo gaashaan u nahay si dalkani u noqdo mid dimuqraadi ah oo sharcigu ka shaqeeyo dadkiisuna ixtiraamaan dastuurka kuna dhaqmaan nidaamka federaalka ayuu yiri madaxweynaha dawladda Puntland ha ku kadsoomin xamarna cid kama lihin Soomaaliyana laguma aamini karo waana ka qabanayna ilaahay idinkiisa
waxaan ballan qaadayaa in ciidamada Puntland ay heegan buuxa uga jiraan difaacooda marnaba ma aqbali doona ayuu yiri Dani waxaan ka xumahay hadaladii uu dhawaan Xasan ka yiri Xamar Xamzana uga daba maray waxaan jeclaan lahaa in odayga hadalka u soo dhiibay Xamza uu isaga sidaas yiraahdo ninka hadalkaas u soo dhiibay waan garanaynaa reer Puntland cuqdad ma qabaan waxa ay rabaan inay sheegaan kama gabadaan danta iyo dawladnimada ayaa u cad ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani dabcan ra'iisul wasaare Xamza oo dhawaan Muqdisho ka hadlay ayaa sheegay in kuwa Soomaaliland aan ahayn oo cuqdadaysan ay jiraan isagoo ula jeedo Puntland wuxuu yiri kuwa gooni istaaga ah kuwa aan ahayn oo cuqdadaysan ayaa jira tubaraac caadi ayuu kolkaas sameynayay oo wuxuu weerarayay Saciid Dani iyo ragga saaxiibadiisa ee reer Puntland laakiin Dani isaguna wuu fahmay jawaabtan ayuuna bixiyay isaga oo Xamza yiri adeega tahay wixii lagu soo dhiibay baad sii sheegtay laakiin waxaan ka jeclaan lahay in duqa isaga uu hadlo inta adiga uu fariin ku soo dhiibi lahaa ayuu si cad u yiri ninka dadkiisa dilayay madax dhaqameedkiisa iyo ismadii dilayay ee ku hogaaminayay diyaaradaha daroonka ninkaas ayaan filayaa inuu cuqdadaysan yahay oo Soomaali dhan u cuqdadaysan yahay ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in reerka Puntland ama reer Puntland ay yihiin dad ku suntan midnimo iyo Soomaalinimo ayna mar walba u taagan yihiin ilaalinta nidaamka federaalka iyo dawladnimada Dani oo khudbadiisa ay dheereyd ayaa ku jira mudaxileedkiisii labaad ee Puntland waxaana laba jeer u taltamay xilka madaxweynaha balse kuma guuleysan inuu helo cod ku filan oo uu ka helo baarlamaanka Soomaaliya laakiin sanadan waxaa la aaminsan yahay inuu cardaadiqada ka dhigi karo Xasan Sheekh khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe ka sii darayay wuxuuna salka ku hayaa arrimo ay ka mid yihiin wax ka beddelka dastuurka nidaamka doorashooyinka awood qaybsiga dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada iyo sida loo maamulayo amniga dalka Puntland ayaa horey u sheegtay in kalsoonidii kala laabatay dawladda federaalka kadib markii baarlamaanka federaalka uu meel mariyay wax ka beddelka dastuurka lagu sameeyay maamulka Garowe ayaana ku dooday in isbeddelkaas oo lagu sameeyay uu yahay mid hanaanka wada ogolka aan ogolayn isla markaana dhinac mid karan uu yahay dawladda federaalka dhankeeda way ku adkeysanaysaa dhameystirka khilaafkuna uu sii xoogeysanaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani muuqaalkiisa ayaan kula wadaagaya ila daawo